aynu difaacano baddeena. waa xaq in qof walba oo Soomaaliyeed kaalin ka qaato difaaca baddeena. ishuuga inaan maqasheen ma aqaano oo Kenya iyo Soomaaliya hadda isku haysana Security Council iyo United Nations oo Kenya oo ku mudacayso dhahayso al-shabaab ha lagu daro resolution oo la yiraahdo 1267 oo ay ku jiraan al-Qaacida ISIL shabaab ha lagu daro qof kastoo biir qabo oo fiyo oo tiraahdo shabaab meesha lagu daraa waxa ku leh waxa lagu diidaa shabaab laakiin maya anaga waa diidnay waan idin sheegaa sababta number 1 shabaab waxay ku jiraan sanction la dhaho 751 waxa la geliyay 2007 shabaab lacagta ugu badan waxay ka helaan dhuxusha la dhoofiyo oo laga dhoofiyo gobolada koonfureed marka la dhoofinayo waxa kor taagan askar Kenyan ah ana ma sawiran haynaa waxaan haynaa facts qoladii xataa sanction committee-ga soo qoray oo dhahayo we have seen ayaga soo qoray report soo qoray waxaan inaga sameynaa ma aha leeyihiin Kenyans ayagoo joogo dhuxusha meesha laga dhoofinayo marka waxa ii sheegtaa Kenya iyadoo ogolaatay in dhuxusha la dhoofiyo ay shabaab lacag ka sameeyso why ay shabaab u rabtaa inay ku darto 1267 marka waxaa noo soo baxay laba shay 1267 ma qabo exemptions oo humanitarian ah marka haddii la geliyo meeshii ay shabaab joogaan hadduu disaster ka dhaco wax la geen kara bale taas yaa nagu taageeray dhammaan hay-adihii humanitarian ka shaqeynaya dhan waxay ku taageereen Soomaaliya warqaday u qoreen Secretary of State-ka Pompeo meel walba u qoreen Kenyans maxay sameynayaan waxay adeegsadeen dhammaan hay-adahoodii dawliga ah in aragteen ma aqaano baarlamaanka Kenya is the speaker of the parliament wuxuu geeyay motion oo literally hada motion kaas akhrisaan wuxuu declare gareynaa war on Somalia haddii maxkamadda ay ka xukunto arrintii badda oo aan isku haysan anaga iyo waddanka aan dariskana walaalahanay Kenya hadda fiirisid joornaaladooda waa fiirisid daily the standard the Daily Nation all that things waxa fiirinaysa think tank-yadooda kulli waxay ka hadlayaan arrinta badda haddii laga guuleysto waxay sameyn lahaayeen waxay yeeli lahaayeen hatta to the point oo qola think tank ah oo very famous think tank oo Kenyan ay leeyihiin Kenya's maxaa la yiraahdaa Coast Guard should invade maxaa lahaa disputed area and beyond walaalahayga Soomaalida marka maxay tweet gareynayaan everything ay Kenya soo qorto waxa ii soo diro maalin qof Soomaali ii soo diro with tweeting Instagram Facebook the propaganda of Kenyans anaga faafineen marka walaalayaal waxaan rabaa inaad fiirisaan oo la kala saaro qofka bini'aadamka mucaarad waa noqon kartaa dawlad kasta mucaarad lagu noqon karaa wala mucaaradka laakiin mucaaradka iyo muxaafidka wax ka dhaxeeya jiro waxa naga wada dhaxeeyo wadan oo la yiraahdo Soomaaliya oo leh territorial maxaa la yiraahdaa boundaries oo leh la aqoonsan yahay oo adduunka laga aqoonsan yahay can we just agree horta wadankaas inaan ilaashan karno xuquuqdiisa aan ilaashan karno aynu difaacano baddeena. waa xaq in qof walba oo Soomaaliyeed kaalin ka qaato difaaca baddeena.